marka koo dhalinyaro tahay oo saxaafadda ay soo galayso horta uma fadhisid inaad mushaar heshid kaliya waxa waa inaad is soo saartid waaba lagu leeyahay is soo saar siyaasadaha caalamka iskala socon jira anoo yaroo 10 jira waxaa falanqeyn jiray ra'iisul wasaarihii hore Israa'iil Ariel Sharon iyo Ahmed Walad Abdallah iyo Barack Obama iyo waxaas ka hadli jiray halka ilma aniga ila egna ay ka hadlayaan maanta rigoor ma dheeleynaa iyo koox ma balansanayna banooni 4 sanadood iyo hal bil oo idaacadaha Muqdisho ka shaqeynay waxaan xusuustaa 6 bilood kaliya u maleynaya oo $50 qaadanay maahane inta kale 3 sano iyo barkaas kale wax heli jiray malahan markii aan meeshii soo gaaray ay askarta dhan qoray ugu wada qabteen xabadka dhulka ee dhigan waxay dhahan niyow maxaa yo isku qarxin qof ee imaadaala way meesha cabaar u jiifay qof walba wuxuu leeyahay ku qarxinay ka tag si guud dhalinyarada aragala oo la simanayo qof walba dhalinyaro oo aragala haweenkiisa ugu weyn waxa waa marka uu yaryahay inuu wariyo noqdo 95% ama hadeesa ka badneenbo 7 subax markay dhamaatay ay qabatay dhaadas oo maamadii ay qabato dhaah markaas ay wiilka caawinaya wiilkii caawinaya qabanay markaas leedahay Armando iyaarkan 7 maalin oo quraan saarka muu dhamaan miyaadaadka soo cesho ma ku dhahay 7 kala loogu daray idaacada soo shaqeeyay macnaa in quraan saar ay u maleeysan jirto waxay dhahay ilaahay ku anfac mid kale taaliish man iyo ka soo reebtay dhahay asaga ma idin ka soo reeb taaliil ma wadatiin kula wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo aynu la yeelanayno wariye Waliid Maxamed Cali oo kamid ah dhalinyarada warbaahinta ku jirta isla markaana aragga naafada ka xilli maanta ay ku baagan tahay 3 bisha May maalinta caalamiga ah ee xuska warbaahinta ee tacdiida ka dhanka ah Waliid marka hore kugu soo dhaweynay waraysiga gaarka ah waan ku faraxsanahay inaan markii ugu horeysay soo horfariisano anaga isbaraysanayna marka hore waxaad ku bilowdaa dad badan oo ku garanayna ayaa jira marka Waliid waa qofna maalin wanaagsan aad leeyahay umada Soomaaliyeed waxa la maalin wanaagsan oo ku faraxsanahay maanta inaan horta isku soo hormuuqano oo waraysi soo nimaadno dad saaxiibaha oo magaalka isku jiraan laakiin maanta in waraysi aan soo nimaadno runtii wax weyn ay tahay waan ku faraxsanahay horta ani taariikh badan malihi magacaygu Waliid Maxamed waaye reer Muqdisho ahay Muqdisho ku wax bartay deganahay ka shaqeeyay ilaa iskuulkii inta ku qaatay marka reer Muqdisho la taariikh badan oo Muqdisho aan dhaafsiisneen leeyahay waa taariikhdaada kooban waa maasan tahay Waliid waxa tahay nin dhalinyaro ah aragga naafaka ah anoon jeclaysaneen eraygaas inaan ku dhaho laakiin haddana waxa tahay wariye marka bal waxaad ka warantaa hamigaaga saxaafadda ma waxa uu ahaa wixii ugu horeeyay ee dhalinyaronimada ama soo hana qaadkii hamigaaga koobaad mise waxyaabo kala jiray oo hadda duruufta iyo danta ayaa keentay Fardoos waa maasantahay mar kale aniga yaraanteedii horta si guud dhalinyarada aragala oo la simanayo qof walba dhalinyaro oo aragala haweenkiisa ugu weyn waxa waa marka uu yaryahay inuu wariyo noqdo 95% ama hadeesa ka badneenbo aniga waa arkay boqolaal dhalinyaro oo aragala oo wax isla baranay saaxiibanahay hamigooda ugu weyn waxa ahayd inaan wariye noqono sababtoo ah horta badan anaga arag la'aanta waa ku dhalanay 3 meelood laba meel oo ku dhasheen qaar ayagoo yar yar xaaladaha la kulmeen marka cunugii asagoo arag la markuu soo fariisto de qofka maskaxuu leeyahay moogtaa qalliin surgery oo weyn nama sameyn karo qofka haduu arag la yahay engineer guryaha dhisma noqon karo marka waxa isleeyahay halka hal fursad kaliya ma aha fursadaha banaan oo dadka aragala ay qaban karaan macnaha ee qayb ugu muhiimsan ka tahay haddana wixii waxyaabaha kale oo keenay waxa kamid ah anaga marka hadda anoo kale markaan yaraa qamiista iyo jimcada meesha ciyaalka kale ay ka dheelaan oo garaangarada inta qaataan ee magaalada aadaan ani raadi yaraa guriga ii yaalay siyaasadaha caalamka iskala socon jira anoo yaroo 10 jira waxa falanqeyn jiray ra'iisul wasaarihii hore Israa'iil Ariel Sharon iyo Ahmed Walad Abdallah iyo Barack Obama iyo waxaas ka hadli jiray halka ilma aniga ila egna ay ka hadlayaan maanta rigoor ma dheeleynaa iyo koox ma balansanayna banooni marka hubigayga ahayd waliba aad u jeclaa mid kale oo ayadana waxa jirtay laba waxyaabo kale oo aan jeclaa laakiin saxaafadda aad ugu horeysay labada kale waxyaabo jeclaan waxay aad ku badda cagta iyo darawalnimada taasna waxa ku hoos jirtay shuruud ee markaa yaraa wax xusuustaa marka ciyaalka sheekaysanayna waxa dhigi jiray hadii lacal marka ayayaa ka maqli jiray moogtaa ayadoo dhahayso Waliid markuu weynaado indhiis wax waa laga qaban karaa marka waxa dhigi jiray hadii lacal indheega aa weynaado wax laga qabto indhaha ii fiicnaadaan wariye aan qorrabay laakiin hadii oo indhaha ay fiicnaadaan wariinimadu waa joojina darawal ama ciyaartoy kubadda cagta inaan noqdo jeclaa jiray marka
tii darawalnimada inaa gaariga wadana waxay noqoto maanta 2024 in ani lii wado ma garata marka waa marka rajadaas ahayd in aad indhahaaga wax laga qaban karo xagee ku dambeysay wallaahi horta rajadoo dhan horta waxay iskugu biishota dalka dibadiisa wax looga qaban karaa in dhakhaatiirtii ay dhaheen marka xaalado iska adag iyo daruufo badan oo iska jiray na way ii suurtageli waysa ma garata inkastoo dadkaad qaar haddii ay leeyihiin weli nin dhalinyaraha tahayo fursadii waa haysataa haddii xaaladaada wax laga qabto kulley noloshaada dib waa u dhisan kartaa ma garata laakiin hadda may suurtagelin waata weli waxaan dib ugu laabanaynaa marka waayahaaga saxaafadda shaqadii ugu horeysay ee saxaafadeed ee aad bilowday maxay ahayd horta 2016 fursadii ugu horeysay helay kooris saxaafadeed oo 6 bilood ah iyo 3 bilood oo practic ah oo idaacad ciyaare FM dhigi jiray oo nin Cabdullaahi Ismaan Faarax loo halkan oo mahadcelinayo macallimiinta kamid ah oo agaasimo ka ahaa waxaan sameeyay jirnay 5 maalmood waxaan dhigin jirnay 2 maalmood ee Khamiistii Jimcadan waa practiceyn jirnay marka 2016 markii aan meeshaas ka soo qalin jabiyay ilaa 2017 18 idaacadaha ka dhow wareegi jiray iyo telefishinada fursadii markii dambe waxay timid 9kii waa bishii 9aad 4teeda 2019 markaas oo aan fursad ka helay idaacad hiigsi la dhigi jiray oo ilaa hadda shaqeyso hiigsi loo Muqdisho ku taalo nin Maxamed Xuseen Daacad la dhaho halkan uga mahadcelinayo oo runtii fursadii isii meeshaas ayana ka bilaabatay dhabihii aan saxaafadda ku soo galay maadaama aan hore u wada sheekaysanay caqabado badan ay iga sheekaysay oo dhinaca shaqada iyo saxaafadda la xiriira markii aad shaqada ku cusbad waa ognahay shaqada saxaafaddu aad waxay u tahay shaqo adag oo shaqooyinka kale ka duwan marka laga hadlayo shaqo soo xaadiritaanka xilliyada dheer ee la shaqeynayo haddana ku laabashadii guriga bal ka waran caqabadaha ka wajahday والله horta caqabadaha way iska badnaayeen oo dhanka marinka wadooyinka in horta marka koow dhalinyaro tahay oo saxaafadda ay soo galayso horta uma fadhisid inaad mushaar heshid kaliya waxa waa inaad is soo saartid waa lagu leeyahay is soo saar marka is soo saartid laguma baqarinayo adiga markaas ismaareen doon is soo saarkii marka tahay nin dhalinyaro oo arag la oo maanta wax hortiisa yaala aan u jeedin way adag tahay inaad kaliya is soo maareysid nin saaxiib oo halkan aan ka salaamayo oo Axmed Maxamuud Liiraado saaxiibkay ah ayaa runtii aad ii caawiyay idaacadda 6 bilood oo aan joogay runtii subax walba barnaamij waliba xitaa waxaan la alasay hal saac subaxnimo soo galay 12 subaxnimo inaan soo kaco ay soo bixi jiray mar walba oo i soo caawin jiray galabtii oo i soo dooni jiray caqabadaas way jirtay mar walba waxay shaqo aad wax lacag ku qaaday shaqo wax lacag ku qaaday waxyaabo cajiibka waxa kamid ah Firdawsooy 4 sanadood iyo hal bil oo idaacadaha Muqdisho ka shaqeynay waxaan xusuustaa 6 bilood kaliya u maleynaya oo $50 qaadanay maahane inta kale 3 sano iyo barkaas kale wax heli jiray malahan $50 waxay ahayd transportation iyadoo markaas leeyahay macnaha ana si saaxiibtinimo iyo walaalnimo ku siinaay maahane nugu milihid macnaheed idaacaddan xeerkeeda ma aha in mushaar la bixiyo ma garad ana kugu naxariisanayo marka shaqada ugu horeysay aad shaqada tagtay ma la kulanta dadka mas'uuliyiinta idaacadda ma soo xijira dadka hoos shaqeynayay oo iyagu dhibaatadan ka mas'uul ah isleedahay hadii qofkii maamulka ahaa ama qofkii madaxda idaacadda ka ahaa oo ku ogaan lahaa xaaladda gaarka ah sida ma isa dhacday والله Firdawsooy meeshaas horta geed dadka kala qariyo meeshaas ma isalahayn oo dadku waa la isku jeeda hadii qofka oo maxaa la jiray oo rabo inuu ku arko Soomaalida hore waxay u dhaadeen ninkii fadhi ku arki waay looma istaago marka ninkii istaag ku arki waay looma fariistay Soomaalida dhigi jirta marka tiyaa hadda markaas marka waxa la wax qarsoon ma ahayn arintaas waata wali caqabadii ayaa wali ku guda jirnaa marka shaqada qofku markuu ku cusub yahay haddana warbaahin ay tahay on time la rabo inuu ku yimaado shaqada ka waran caqabada aad kala kulantay maadaama la rabo in xilliga barnaamijka ka hor aad timaadid barnaamijka la diyaarinayo laga yaabo xataa mararka qaar producer ana barnaamijka ka tahay aad u baahan tahay inaad qof ku soo wada subax walba xaafadda ka soo wada shaqada ku keeno adigana aadan qof mushaar qaadanaya adahay caqabadaha way jireen waxa waaye qofka markii oo barnaamij qabanaysid waxa la rabaa waqtigaaga inaad ku imaado saxaafaddu waxay kamid tahay meelaha time-ka badan macnaha qofka oo shaqeynayo oo tusaale ahaan oo kale waxa laga yaabaa adoo 7 subaxnimo adoo shaqada soo galay inaad habeenkii hal saac oo kale ku gaartid marka waxyaabaha cajiibka ee xanuunka badan waxaa kamid ah oo saxaafadda inta ku jira aan ilooweyn on time kaasna la xiriirta
maalin maalmaha kamid a yarkii caawinaya subaxdii ahayd marka waa dareemi kartaa qof dhalinyarada leeyahay marmar hurdo way kula tagi kartaa yarkii aa marka hurdo la tagtay idaacaddana waxay ku dhex taalay meel xarun ciidan ah marka xarunta ciidan idaacadda subaxyaashii oo subaxyadii horreeyay micnaha ee waxay dhihi jireen ninkan indhool maaha nin idaacad ka shaqeynayo oo labisan annaga indhool ma dhihi karnay micnaha ma barnaamijkan barnaamij wadankiina waa iska ogtahay oo dadkii waa la kala shakisan yahay ma fahamtay marka waxay leeyihiin micnaha ninkan indhoolnimo maahan iyo ujeedo kaloo wataa waxyaabaha ay dhihi jireen waxaa kamid a qorshayaasha niyow meeshaan ugu soo laalaabanayso maalinta aa fulin rabto maalintaas ilaahay anagana ma joojiyey iyo waxyaaba noocaasay dhihi jireen marka aan dhab uma dhigi jirin sababtoo ani maalinta aa gurigii kasoo baxaya waxaa go-aan kusoo gaaray micnaha hadal xun iyo hadal wanaagsan bay inoo soo saameyn ugu yeelan marka ilaahay amarkiis markaas yarkii hurdo la tagtay iyo subaxdii waxaa isku soo aaday anoo waqtigii barnaamijkayga la gaaro marka waxay dantii ugu qasabtay inaan ani riski iska soo qaato aa iska soo baxo yarkiina oo iga maqnaa markii ay saas ii arkeen oo ah xaruntiisa inta dhib badanaa horta lasoo kulmay inaa meelo badan kusoo dhadhacay maxaa la dhihi jiray dhibaato badan lasoo kulmay markii aan meeshii soo gaaray ay askarta dhan qoryo ugu wada qabteen waxay dhaheen waa kana ninkii oo maanta iska soo reebay waa ujeedaa maalintii howlgalka waa yarkii la socday waa iska reebay qoryo ugu qabteen xabadka dhulka ii dhigeen waxay dhaheen niyow maxaa yo isku qarxin qof ii imaadaa la waay meesha cabaar u jiifay qof walba wuxuu leeyahay yo kuu qarxinay ka tag yo kuu qarxinay ka tag leeyahay ma garata marka war aniga isma qarxin rabin wax kastoo aan kugu cadeynaa inaan isqarxin rabin waa idiin sheegaya markii dambe odayaa wuxuu dhahay bal anaa iska tabakalaya kulli haddaa ku dhintana allah ii naxariisto dhahay ma fahmi aniga waxaa noqday micnaha god cadaab dhexdeeda iga dhigaanba iyo meel nasiib ah oo qofka ii imaado inuusan nabad iiga laabanin oo ii imaado waa ibaabaaray ari ninkan waxba ma wada asagaaba tiisa u dhibane iska deeyo oo taagan yahay marka sidaa markaas leegu soo daayay maalin dambana waxay dhahaan ninkii oo maalmahan ku wadi jiray maalin damba daa ka soo tagtay iska jira dhahaan ninkii waxay iga dhigeen baasaboor ma garatay saaxiibkii waa waxa kaliya lagu aqoonsan karaa dib kale waxa noqonaysa ninkaas daa ka soo tagtay iska jir madaxa laga jabaa marka idaacadaha dadka iga dhageysto runtii oo hadda Facebook-gay ku taxan oo haddii muuqaalkan page-kiina soo gelisaan aan soo share gareyn doona ama aan soo gashan doona anigana dadka badan waxay arkaan anoo barnaamijyo qabanaya ay dhahayaan niyo barnaamijyadaada waa xiiseynaa laakiin barnaamijyada la xiiseenaayo oo aan waqtiga badan gelinayo qisooyin badan oo xanuun ka dambeeya marka aad iyo aad waa runtii waa wax aad iyo aad looga xumaado caqabaduhu waa badan yihiin keliya kuma eka keliya ammaankii iyo soo aadistii shaqadii waxaa ka hadasha waxaa ka mid ah in qof 4 sano warbaahin ka shaqeynaya haddana uusan helin waxyaabihii nolosha asaasiga oo ahaa tusaale inuu baabuurka soo raaco iska soo bixiyo markii dambe xilliyadii hore aad ka shaqeynaysay ilaa 2 sano ugu dambeysay sidaas inay socoto maxaa keenaa islaada والله waxaa keenay horta mar walba waa lagu meemeerinaa waxaa lagu leeyahay waxyaabaha xasuusta waxaa kamid ah 2021 mar title leysiyo idaacadda madax barnaamijyada ka noqday horta dadkii markaas way ku soo wacayaan ariya waliyo samirkaaga niyo barnaamijda madax barnaamijyada laga dhigay haye yaaqshid ma ka guuray magaalada diyaarsan ma degay aan leeyahay warxaan title aan leysiyo title-ka macunaha dhaanimayo marniyo waa ku kala kacday marka qaar waxa way title-adii wax kugu diray marka maamulkiina uu ku afmicinaa wixii ku leeyahay marniyo bishaan wax lagu siinaa iska sawirniyo anaga waxa ku jirno micnihii ina dib isku habeeno baashaan adiga dadku ugu horeeyo dadku u soo sabraa kamid gacanta ka shumin doonta markii baashan ay kala kacdo adi mashruuci faanolo kala wax ugu ahaa ma fahanto oo markii dambana dhamaadka iska noqday ugu dambeyn marka hadda ma xarun warbaahineed ayaad ka shaqeysaa base waxa taa wariye madax banaan sanad ku dhawaad idaacad kama shaqeynaynin oo xaafada joogay sababtoo ah wixii kow markii hore lacag la'aanta iyo transportation la'aanta iyo riskiga iyo markii ugu horeysay horta waa u dul qaadan jiray waxa islaa fursadii waa imaanay markii dambena waxa waay de asxaabtii waa la isku daalayo qofkii dadku ku caawinaya iyo adigii iyo wixii energy u heysay iyo wixii waa ka dhamaanaya ma fahamta markii dambe waaba iska gaabiyay waxaas dhaabal mashruuca la sheegayo markoo qarxo bal isku aadiya isdhaaf ma garatay inta kale tan Firdawsi adaa ku watay waxyaabaha kale waxa kamid ah marka aad tahay qof aragala oo idaacada ka shaqeynaya oo aad bulshada soo dhaxgalaysid ama idaacada aad soo aadaysid waxyaabo badan la kulmaysaa sheekooyinka aan la kulmo waxa kamid ah idaacada aad ka shaqeynaya hoosteeda maamo oo wax ku gadgadi jirtay marka
ani maana ogeyn yarka oo caawinaya ii sheegi doono markii dambe oo idaacadda ay ka soo tagay marka waxay dhahan niyow welidow ma xasuusataa markii idaacaddaas ay aadi jirnahaa niyow subaxyadii ugu horreeyey 7 subax camal ayadaa sheegi doonta kulley inay 7 subax aheede 7 subax markay dhamaatay ay qabatay dhacdo oo maamadii ay qabato dhaah markaas ay wiilka caawinaya qabanaysa wiilkii caawinaya qabanay markaas ay leedahay armaan dhow igaarkan 7 maalin oo quraan saarka muu dhamaan miyaa wadaadka soo cesho ma ku dhahay 7 kala loogu daray idaacadda u soo shaqataysa quraan saar macnaa in quraan saar ay u maleysan ma jiro waxay dhahay ilaahay ku anfac mid kale taaliish man iyo ka soo reebtay dhahay asaga ma idin ka soo reeb taaliil ma wadatiin marka macnaa umad noocaas la iskaga dhaxlo waa maasantahay waliid sheekooyinka qalbi taabadka markii aan ka tagno waxaa jirta sheekooyin badan oo qosol ah ay iga sheekaysay sheeko waxaa jirtay 2021 in ayadaan filayaa social media-ga warbixin saameyn la ku baahisay dad lagu waayay barnaamijka u bixisay bal sheekadaas daawadayaasha la wadaag horta waxaa jirtay mar muuqaal iga sameeyay oo yar halkan aan ka salaamayo maxamed axmed liiraado muuqaal oo iga sameeyay oo qurux badnaa kaligiisna ma ahayn asaga fikradda iyo muuqaalka inuu codayo laakiin asxaab badan runtii cameraman iyo waqti badan la geliyay halkan waa ka salaamaa saaxiibada waxaa jira marka muuqaalkaas la faafiyay page-ka la soo geliyay aad oo kala kacay 100,000 oo qof in ka badan daawatay page-ka marka page-kayga maadaama uu yahay ninka laga sheekeenayo waliid maxamed oo yahay page-kana oo keegi yahay marka qofkii page-ka arko micnaa wuxuu in page-kan aniga aan leeyahay marka qaybta oo Facebook markii la soo galo WhatsApp-kayga iyo waxa saaran ciwaankayga caadiga oo private-ka wuxuu ku taageeraysan marka wixii faahfaahina in aniga la soo xiriiri karo maxaa ii geeyay bal marka waxaa dhacday qof kamida maamooyinka Yurubta ku nool gaar ahaan Ingiriiska baa ciwaankayga iga soo raacday oo igu soo darsatay marka maalmahaas requestiyo badan isoo dad badan ku socodsan maadaama sheekadiina ay faaftay marka ilaa amarkiisa requestiyada qaarna waa aqbali jireen qaarna ma aan aqbali jirin marka maalintaas wax badan isku soo aadaaday inay qaciga yartaa qorneeda waxa dhacday marka waxa arkay princess ilhaanita wax noocaas camal aad magaca dambo magacadan yar yarka oo chocolate ka ma garato magaca chocolate magaca xoogaa markii la aqrinayo carabka u roona ma garato marka waxaas dhaa magaca ugu yaraan waji qurxoona ka dambeeyo oo dhalin yar marka meesha waxa waa isla meeshii maxaa la jiray iskaabulnimada uga bixinaan marka waxa cajiibka waxa kamid marka profile-ka ku sii dhufto qofka marka oo kugu soo darsado adinka waxaa sameeyeen dadkiina wax u jeedo sawirada fiirisiin ma gartay inuu qofka qurxoon yahay in kale to laakiin annaga waxa fiirinaa leafis meesha qofka oo degan yahay iyo mutual badan inaa leediin dadka oo wadaagtiin dad badan idin ka dhaxeeyo inuu wax soo dhigdhiga active-kaas kadib markaas sawirada dadka inaa la kaashano aan dhaano qofka ma qurxoon yahay tagay ma gartay horta process-yadan kale waxyaabo yararka annaga soo saxno laakiin wixii waaweyn dadka kale loo kaashado in kastoo marka qaar marka oo qof saaxiibka dhaadniyo qofta mashadanta oo ku dhow everywhere qoftiin inta ciwaanka ka qorta أنا مركز قبلينا قبر مدهاين ويقرحونتها مقرت وحيسكالها تنا والله وعلى فيري كرا إسكالها مقرت ورادي لا فيري كرا ما أنا قفت مقرحونتها مقرت مركي أنا شاكو كودالي إنه حد عادي قبلي الهانيتدي أو قبل أملينا مركز فيسبوك زي قال ليفس إن بريستول أو قرن هي كاسف يعني وحايس صور متفيسي إنجليز أيضا ليس صديرة مفهوم تصويره ده إسكب بديهين markii islaantii waa ku darsada waa aqbashay marka waa ka aamus waa soo wacday marka waa aniguna waa taqaana waxa xoogaa sharaf yara ilaaliyaa waxaas dhaa bal taleefanka ha iska dhigin nin oo fursadan sugaa isdhaa ma garata cabaar bal taleefanka meel iska dhig ha iska dhaco haddana cod yara maskaxdeeda ka maqlo oo dhahay waliidu hadoo leen meeshan kugu dhaafa ka waran adi go'aan iska qaato ma fahantaa waa iska qabtay kadib maamadi assalaamu calaykum maama ay dhaad ma fahmi horta 50% kalsoonidii waa lunta qacna waa iga yarta ma fahmi marka waxa gabar yar asugayso oo gabar yar ka sugay marka waxa is dhahay bal ka warku waa ka kooriyo aad wallahi waa ka xumahay in dhoolnimada ma ku dhalatay ha musqusha kaliya ma aado cid wax ma ku siiyaan la ilaa baahiya ka muuqato walaa wajigiisa sawirkan adiga miya والله وعاتيسين وقللي والله وعاتيسين وحدا هرت إيد وكذا ميل تعسيم هذا إيماننا ننا صوّع ذي واسك فرح صنايع مروكتنا إيسو صارت معاوي هذا ما والله وكحومه أرنتان وحواي إن الله شيء جواي أو قبليها وعاء هذا مركب ما كله كصادرت الجروب مركز هذا قبله وكله أيضا لجوا ماشي لجوا إنجليز كلجوا مركز هذا
kaalay waxaa idin hayaa wiil allii rasuul u baahan markaasaa dhaa maama adi alla baa ka maarantaa miyaa dhaa macnaha ani ma allii rasuul bis u baahan adi ma ka maarantaa dhaa maya waa la kala daran yahay u kaadi ha cunugan walaa maanta caloosho iga soo riday ilaahow waa ujeedaa adaa sida u gala maskiinkan wuxuu galabsaday ma lahane meeshii adiga duco aan laga dalbanay meeshii iskaga meega iska qabsatay islaamihii kalena waa u jiibinayeen ma fahamta abaysitida camal marka adiga rajadaada halkaas ku burburtay gabar yar oo xasuugaysay markii dambena balooga ka wada safay ilaaha leeman ingiriisa sahla dhahay meeshaan leen ingiriiska ma raacne weli waa maasanta gogolada joognaa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maadaama nin dhalinyaro aad tahay saxaafadii muddo kasoo shaqeynayay caqabadihii aad hadda kasoo sheekaysana soo maray su'aalaha dabacsan miyaa marka waa su'aalaha dabacsane maxaa dhihi lahayd mulkiilayaasha warbaahinta iyo qof walba awooda inuu ka qayb qaato sida shaqo u heli lahayd wallaahi horta nin dhalinyaro ah oo waqtigiisii ugu fiicnaa hadda ku jira ahay oo da'da 20 ilaa 30 waa da'da qofka dhalinyarada oo ugu markaas ugu firfircoonida badan oo energy ugu badan hayo energygaas marka haddii aan la fariisto kulli caqabada ka dhalan karto qof walba oo muuqaalkan daawada oo runtii wax fahmi karaa horta wuu fahmi karaa wuuna dareemi karaa madaxda idaacadaha iyo waxaa ka codsanaya runtii in dhalinyarada aniga oo kala ah horta in shaqooyinka loo fududeeyo oo aan la dhayalsanin oo bal hoos arrimahooda loo fiiriyo si qaasana kulli aniga waxaa waaye nin dhalinyaraha wax badan soo shaqeynayo kulli fursadii saxaafadana soo shaqeeyo wax badanna soo qabtay waaye araga oo runtii ayagana wax kusoo kordhin karaa ah oo maanta aysan laba mid horta waaye markay ani shaqo isiyaan horta waa in oo ayagiin ani ay wax ku kordhiyo ayagiin ay wax iga korsadaan oo aan u shaqeeyo mid labaadna waxaa waaye dee in la isku naxariisto la is caawino wax fiican waaye magarad marka qof walbo arrintii wax ka qaban kara runtii oo in fursadaas ay siiyaan waa ka codsanaa aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waxa ahaa waliid maxamed cali oo aynu ku wareysanaynay maadaama 3 May maanta ay ku beegan tahay oo ah maalinta dhamaynta tacdiida loo geysto saxafiyiinta waana wariye aragga naafaka waxaan rajeynayaa codsigiisa inuu gaari doono dad badan oo arrintiisa wax ka qaban doono intaas ayaan wareysigeena kusoo koobanaa waa mahadsantahay waliid. Thank you.